بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dadka goobjooga ah, madaxda bulshada iyo beeralayda iyo dakaatirada goobjooga iyo aqoon-yahanada iyo ardayda cilmiga beeraha barato qof kasta halkan ku sugan marti sharaf ah. runtii waxaan ku faraxsanahay galabta inaan goobjoog ahay wax soo saarka ururka barbaarta iyo beeraha oo runtii soo bandhigay dadaal 10 sano ay wadeen dheefna oo ah dalka iyo dadka. waxaan rajaynayaa hadday nala joogi lahaa fiicnaanaya wasaaradda beeraha in dokumentiga la soo bandhigay uu kayd u noqdo kiifiyadoodana ay geliyaan. runtii haddii aysan jooginne in loo geeyo laga faa'iideysto. runtii waa hanti dhalinyaro Soomaaliyeed ay ururiyeen ayaga isku tashtay. marka xogta ay ururiyeen xataa codaynta dokumentiga ay codaynayeen ayagu marka aad ay u mahadsan yihiin. runtii wax lagu farxo waaye. aniga dokumentigan hadda naloo qaybiyey runtii uu cabsi geliyey markaan akhriyay sugnaanta cunnadu ka hadlayaa. Dr. Maxamed Ali Sheekh hadda inta iga horeeyay khayr Allah siiyo su'aalo la weydiiyey wareysigiisa ku jiro. dokumentigan waa daraasad 3 geesood ah, 3 hay'adood ay diyaariyeen: hay'adda tirakoobka qaranka, barnaamijka cuntada adduunka iyo hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay. waxaa laga hadlayaa sugitaanka cunnada. Dr. Maxamed su'aal la weydiiyay ku jirtay oo ahayd Soomaaliya weligeed isku filnaansho cunto ma gaartay? jawaabtu waxay noqotay maya. sababtu waxay tahay mar kasta waxaa lagu kabaayay cunto ganacsi ayaa lagu kabaayay iyo mid kale oo maxaan ku dhahay gargaar ah. dal leh dhul beereedka intaas oo hektar ah oo labadeena shabeelle kaliya haddii la beero ay quudin karaan oo salad quudin ay u noqon karaan dalkeena iyo geeska Afrika oo dhan ayaa haddana aan gaarin isku filnaansho weligiis intii uu jiray. sidoo kale waxaa ku qoran oraah yar oo runtii rajo xumo muujinaysa marka la fiiriyo dhaqankeena oo ah qaran cunto suga ma ahan qaran sugan. intaan cunno sugayno oo gargaar aan gacnaha horsanayno haddii jiritaankeenna aan sugnayn bay qarannimadeena. taasna runtii waxay tusaysaa yididiilo xumo iyo rajo xumo. waxaan boorinaynaa oo beeralaydeena ay u baahan yihiin dhiirigelin in la dhiirigeliyo. aan ka bilowno guryaheena. ma jiraa guri marka la soo adeeganayo bisha ay dhamaato loor galey ah lagu soo daray adeega? ma jiraa? ma jiro. dhiirigelinta halkaas ka bilaabanaysa. waagi hore waxaa jiri jiray cunnadan hadda banaanka laga keenay adeegsigeeda aad u yar. waxaa laga yaabaa maalmaha khamiista iyo jimcada kaliya ilmaha in baasto iyo bariis loo kariyo, inta kale muufo, soor, canjeero, cuntadaas maxaan ku dhahaa lagu soo koray caruurta lagu korin jiray. korrimadana u fiicnaa xaqiiqatan. marka dhiirigelinta halkaan ay ka bilaabanaysaa guryaheena aan ku soo darno loorkaas galeyda ah iyo dhowr madaaloo digir ah ha lagu soo daro adeega u qorshaysan xaafadaha. haddii wax soo saarkii beeralayda uu wanaagsan yahay oy dadaaleen laakiin suuq aysan haysan waxay noqonaysaa dhiirigelin xumay noqonaysaa. ama maxaan ku dhaha galey guduud dhacday naloo keeno oo suuqii lagu soo harqiyo oo dalaggeennii iyo wax soo saarkeennii maaragtay uu yeelan waayo. runtii waa wax maaragtay sugnaanta cuntada toorka soo wato wuxuu ku sheegay wareysigiisa ka mid ahayd hadda isha mariyey sugnaanta cunto horta cunto in la helo kow helitaankeedii, 2 ku filnaansho inay jirto, raqiis inay too la gadan karo, nafaqana ay leedahay. intaa marka ay israacdo ayaa sugnaan cunto la heli karaa. haddii cunnada ay badan tahay nafaqa aysan lahayn iyo haddii maxaan ku dhahan la gadan karin oo suuqiiba ay qaali ka tahay haddii ma jirto isku filnaansho iyo maxaan ku dhahaa sugnaan cunno ma jirayso. waxaan rajaynaynaa inaan dhiirigelino dugsiyadii beeraha ee Afgooye iyo Jowhar. waagii hore marka dugsi sare beeraha la gelayo ardayga markuu ka baxo fasalka 8aad waxaa lagu geli jiray marks dhibco ayaa lagu geli jiray. ardayda tafta ah ee dhibcaha fiican ayaa geli jirtay. haddii 500 lagu saxay imtixaanka 8ka
ardayga 400 dhibcood iyo ka badan keeno ayaa istaahilay inuu galo arday 253 ma ahayn waxay ku tusaysaa dugsiyadaas qiimaha iyo aqoon-yahano maxaan ku dhahaa xirfadlayaal beeraha kulliyada beeraha marka la galayna ka sii daran oo qof kasta ma helayn waxaan rabnaa marka dhiirigelintaas jaamacadaheena kulliyadaha beeraha leh aad ay u mahadsan yihiin way mahadsan yihiin wax soo saarkoodana hadda aragnay dhalinyaradaas runtii maanta noo soo bandhigtay aqoonta iyo xigmadda iyo wax soo saarka beeraha noo soo bandhigtay aad ay u mahadsan yihiin kuwa aan lahayna inay yeeshaan in qiimo loo yeelo hadda ka hor daraaso aan sameeyay 500 oo arday oo secondary ka baxaysay ayaa waxaan weydiinay kulliyadaha ay galayaan 30 arday wax ka yar ayaa waxay dhaheen waxaan galaynaa kulliyada beeraha waxay ku tusaysaa in xataa xog iyo aqoon aan laga haysan kulliyadaas qiimaheeda iyo wax soo saarkeeda iyo maxaan ku dhahaa markastaba al-amn al-ghidaa'i al-caalami ayaa laga hadlayaa ama wax la yiraahdo food security cuntada laftirkeeda haysashadeeda ayaa nabadgelyada ka qayb qaadanayso ilaahay ma qadaree maanta Soomaaliya caalamka waxa ka jirana waan ognahay haddii musiibo guud oo caalami ah iska dhacdo ama aafo kale oo annagu ay nagu dhacdo imisa oo adkeysan karnaa ama kayd cunno aan u leenahay oo heer qaran ah ama baqarada maxaan ku dhahaa dawladeed hadday jiraan maba jiraan imisa lagu moodi karaa ama laga talaabi karaa inta waxaas ay socdaan waxba ma jirto runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah taala beeraleydeena inaan dhiirigelino ardaydeena kulliyada beeraha galaysana inaan dhiirigelino kuwa ku jirana inaan dhiirigelino kuwa ka soo baxayna sidoo kale jaamacadaha kulliyada beeraha aan lahayna inay sameystaan kuwa lehna inay hore u sii socdaan waxaan u baaqayaa ardayda sanadkan ka soo baxaysa dugsiyada sare in ugu yaraan 50% haddaysan dhammayn 40 ay ku biiraan kulliyadaha beeraha waan rajaynaynaa insha Allah taala dokumentiga la soo bandhigayna in la baahiyo waxaana si joogto ah ugu taxnaan doonaa linkigiina la siiyay ama website-kii barbaarta iyo beeraha insha Allah taala si aqoon fara badan annagana ugu helno dadkeena iyo dalkeenana maaragtay aan u gaarsiino hadduu Ilaahay idmo waalidka oo ilmaha u qalin jabinayaan tala waxay kugu leeyihiin xataa kulliyaddan qiimaheeda markaad ogtay inaad u sheegtay inay galaan kulliyadaas aadan u bogaadinaynaa dadaalka ku arkaysanayaan dhalinyarada barbaarta iyo beeraha toban guuradooda insha Allah taala qarni inaad gaartaan aan rajaynaynaa aad u mahadsantiin jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi